goobaha qadiimiga ee magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxa ka muuqanaya xilligan burbur aad u weyn oo ay ka dhaxleen dagaaladii dalka ka dhacay iyo colaadihii ka aloosnaa Muqdisho 20kii sano ee ugu dambeysay. halkani waa golihii murtida iyo madadaalada National Theatre-kii waxaana sida aad arkaysaan 20 sano kadib ka muuqanaya isbedel dhinaca muuqaalka ah iyo raabuq aad u fara badan oo dhinac walba ka hareeyay. guud ahaanba waxa maqan oo aan jirin noocyadii agab ee uu tiyaatarka qaranku lahaa. waxa la fiiqday saqafkii kore ee tiyaatarka iyadoo kuraastii uu lahaana ay yihiin kuwa waa hore la biliqaystay oo aan meelna lagu sheegin. sidoo kale waxa burbur caynkan oo kala ahi uu soo gaaray gurigii hooyooyinka xaruntii Exfiore ee deegaanka u ahayd hobalada waabari ee qaranka oo maanta lagu xasuusan karo oo qura argada laga galo ilinka hore ee xaruntaasi. goobaha qadiimiga ee xusuusta leh ee magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ah xaafadda oo aweyska ee magaalada Muqdisho oo ay ku yaalaan dhismayaal qadiimi ah oo ka kooban carshaan iyo guryo gaagaaban. xaafadda oo aweyska oo dacalka ku haysa xeebta Geelaq iyo Mooldooro ayaa waxa ay caan ku tahay in maalmaha qaar gaar ahaan maalinta Jimcaha ay u soo dabaal tagaan qaar kamid ah carruurta magaalada Muqdisho oo iyagu xeebta isku ballansada xilliyada iskuulka iyo dugsigaba ay fasaxa ka yihiin. xaafadda oo aweyska ayaa sidoo kale waxa ay caan ku tahay ceel gacmeed aad u fac weyn oo ku dhex yaala gudaha xaafaddaasi waxaana taariikhda ceelkaasi iyo maraaxilada kala gedisan ay soo martay xaafadda oo aweyska inooga waramay Iikar Dheere Iikar oo kamid ah waxgaradka ku dhaqan deegaankaasi. ismaheeda qadiimaha waxa uu ka kooban yahay cariish iyo guryo hadda dhagaxa laakiin markeedii hore wuxuu ahaa cariish. ma fahamti xaafaddaas awaabeedka 2 jeer la dumiyay lama kal la dumiyay mar 90 sano saa'id waaye oo waxa markaas la geeyay ceel qalab soo naqadkii waa la soo naqdeen haddana waa la dumiyay waxa la geeyay siif waxa la yiraahdaa meesha hadda dekeda leh meesha hadda dekeda laga dhigay asiif leeyahay meesha yaa deganayeen waa la soo celiyay xaafadii lagu soo naqay iyagoo la yiri macnaa xaaji Rajab dhul aniga la siiyo waxay yiraahdeen annaga maya waxaan nahay dad siimeen ah oo bad ka shaqaysto annaga waxaan rabnaa meesheeni horo badda afkeedii sidii lagu soo celiyay waana degan yihiin ceela ku yaal 2 duqsina waa ku taal wakasti دربنا تليانيغا هورو يا معنا وريجي awaabeeska iyo Cabdulcasiis darbigooda waa isku mid. dadka ku dhaqan xaafadda oo aweyska noloshoodu maxay ku tiirsan tahay? noloshoodu waxay ku tiirsan tahay baddaas ama doonyo ahaataan ama geed leeraado cilmi leeraado adigtaan oo saanfida iyo waxaas galo sidaas ku nool yihiin. marka laga soo tago xaafadda oo aweyska ayaa dhinaca kale waxa magaalada Muqdisho ku yaala masaajido dhismayaashoodu qadiim yihiin waxaana kamid ah masaajidadaasi masjidka Marwaas iyo masjidka Jaamacadda oo ku dhawaad muddo 10 sano ah dhisnaa waxaana labadaasi masaajidba ay ku yaalaan degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. haddaba taariikhda masaajidadaasi gaar ahaan masaajidka Jaamacadda ayaa waxa VOA uga waramay Aweys Cali Boolay oo ah maamulaha masaajidkaasi. annaga waxaan ku sheegaa masaajidka in uu waqti u dhisan yahay meeqa sano camal oo yaraan waxa sida la sheegayo aan maqal ku qabno 942 sano waa tahay masaajidka 942 sano ayuu dhisan yahay Soomaa bal taariikhdiisa ka sheegay. dhulkan wuxuu ka hooseeyaa 5 mitir dhulka inta uu jiro hadda aan soo degnay 5 mitir oo hooseeya macnaha waxa jiro shakhsi inta uu soo baxay انت وكسبحي الشيخ ابي كرم حضار انت وكسبحي رفقي الشيخ الدين لي ها انت وكسبحي ها وجامع اوفع وين وعلماء بدي ود انت كتب كاخر السنجرين تعبد لي اخري وحكمته تفسير القران حديث احكام نحوي علم فقه اوكي waxaan rabnaa inaan nooga hadashid marka culimada
kitaabadaas ama macluumaadkaas diiniga ka akhrin jirtay ee uu magac dheer bal magacdooda waxaad ka xasuusataa Sheekh Suufi yaa jooga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi kamida oo waxa kamid Sheekh Maxamed Faqa Yuusuf oo waxa kamid Sheekh Muxudiin Macallim Mukarram minbarkan waxa sameeyay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi qoraalkan ay kursiga waxa qoray Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi oo gacantiisa ku qoray oo muddo laga joogo ilaa 105 sano dhismayaasha faca weyn ee lagu soo xasuusan karo magaalada Muqdisho ayaa waxa kamida dukaamadii meemanka ee dahabka lagu iibin jiray bariisamaadkii kuwaas oo ku yaala suuqa Afirdood ee degmada Xamarweyne dukaamadii meemanka ayaa waxa ay kamid yihiin goobaha nasiib darradu ku dhacday ee uu burburku haleelay guud ahaan waxa intii ay dagaalada sakoyay socdeen lala baxay oo la biliqaystay albaabadii dukaamadaasi meemanka iyadoo sidoo kalena bilicdii meesha ay dhimatay waxaana jira qashin iyo dukaafad aad u fara badan oo iminka ku xaydaaban afaafka hore ee dukaamadii Afirdoodka ku yaalay ee meemanka gudaha barxadda Yaasiin Cartan ee ka soo horjeeda dukaamada meemanka sida aad u jeedaan waxa iminka laga rarayaa gawaarida BLka ee isaga kala gooshta xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho intooda badan iyadoo bariisamaadkiina ay barxadani xarun u ahayd gawaarida BLka qaarkood iyo tagaasida ka howlgali jirtay magaalada Muqdisho goobaha qadiimiga ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa kamida Hotel Al Uruba oo xilligan sida ka muuqata aan lahayn bilicdii iyo haybadii hore loogu yaqaanay Hotel Al Uruba ayaa sida idinka muuqata waxa dhinaciisa ka saameeyay burburkii iyo dagaaladii Muqdisho ka soconayay 20kii sano ee ugu dambeysay waxaana maanta Hotel Al Uruba ay fariisin u tahay ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho dhismayaasha iyo goobaha taariikhiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxa kamida dhismihii Shaleeme Banaadir oo isbedel duleed ay ku rideen isku dhacyadii ka dhacay Muqdisho xilliyadii ugu dambeeyay shaneemadii iminka ma shaqeyso waxaana bedelkeeda ka furan goobtii ay ka dhisneed maqaayad ay dadku ka cunteeyaan goobaha taariikhiga ah ee magaalada Muqdisho ayaa waxa kamida Ekis bacadlihii dharka ee degmada Xamarweyne kaasoo kadib markii uu gubtay ay dib u habeyn ku sameysay dawladii Maxamed Siyaad Barre hase ahaatee nasiib darro lama calfan oo intii aan loo qaybin dadkii ay hantidoodu ku gubatay bacadlihii Xamarweyne ayaa waxa dhacay burburkii dalka waxaana goobtaasi badbaadiyay ilaa iminkana gacanta ku haya nin lagu magacaabo Cismaan Maxamed Cawaale Cismaan Baynoos waxaana uu VOA uga waramay qaabka uu u badbaadiyay xaruntaasi waad garan kartaa hanti dawlo ee badbaaday dadka markay aqligiisu lumay aqliga binu aadamku wax uu suureyn kara maahan hadda wax aan faahfaahin ama waraysi ku dhamayn karnana maahan balse waa wax u baahan inaan qoraallo badan ka sameeyno ilaahayna hadda ayuu soo gaarsiiyay waan ku guuleysannay inta badan inaan badbaadino haddana waxa ku nool dad yar ah oo Soomaaliyeed oo xabadda ka soo cararay inta badan xaaladiisu 100% way jiraan xiriir badan dawladihii ama maamuladii kala bedelaa runtii hadda ka hor aan dhihi karno way guul daraysteen laakiin hadda rajada ugu fiican ayaanu isleenahay armay Soomaaliya ma garanaysaa bislaatay oo waqtigii bisaylka iyo horumarka ay ku socotaa wadadii ay uga bixilay dhibaatada badan gurigan ma dhihi karno hadda ka hor cid aan oran karno ama local ama muxuu ahaa ma garanaysaa qaab qaran cid noo timid oo mucaahida naga la gashay hadda ma jirto ka hor hadda se wada hadalna ayaa gobolka Banaadir noo socda gobolka Banaadir ujeedkiisu wuxuu yahay in uu dib u qaabeeyo dibna u howlgeliyo bilicdii magaalada Muqdisho si qaas ah bacadlaha Xamarweyne oo dad badan oo ganacsato ah ay ku soo barakaceen Xamarweyne ama ay muxuu ahaa soo bacleeleen ama ay soo aadeen ayay fikirkiisu wuxuu yahay in dib loo nooleeyo dadka qaxootiga ma garanaysaa la maareeyo meel kale lagu maareeyo dhibaato kale lama jirto sidaas ayaa jirta waxaan oran karnaa ninka gobernatooraha gobolka Banaadir hadda ka ahay nin bisil oo aan oran karno raggii Muqdisho joogay oo loo wariska ah maahan waa nin aan oran karna aqligiisu aqli ma garanaysaa oo doros fiican ah fikir fiican aan ka aaminsanahay Cismaan Baynoos ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad xilligan damac weyni uu ka hayo inay dhistaan afaafka hore ee bacadlahaasi barxadan
waxay u dhaxaysaa ajabtii ceelgaabta la dhihi jiray iyo Shaleema Brandri iyo Akis Bacadli yoro iyo online barxadda u dhaxaysa waa baakin ama waa bilic magaalo qofba siduu u garanayo dawladdii waddanka maamuleysay oo dawlad xoog leh ka dambeyn ayaana dhistay sharciyeysayna inay magaranaysaa oo baakinkii bacadlaha noqdo sidaas aawadeed kooxo aan dhihi karno waa damiir laawayaal ayaan dhihi karnaa ayaa dokumentiyaal forgery ah wata oo muxuu ahaa aan ahayn nidaamka adduunyada ka jira nidaam kamida oo dhulboobkii ama muxuu ahaa dugaagnimadii ku bahaloobay boobkii hantida dawladda arrintaas ilaa 1990kii ilaa hadda oo 2011 aan ku jirno ayaa dagaal nagu socday hadba nuuc hadba mid qabiil mar mid kale oo muxuu ahaa kale siyaasadeed mar mid hogaamiye kooxeedyo marka arrintaas runtii dib badan ay nagu qaadatay haddana waxaan aad uga codsanaynaa dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda kala bedelan sida wasaaradda arrimaha gudaha sida gubernatooraha gobolka Banaadir sida muxuu ahaa ma garanaysaa inta Soomaalinimada iyo wadaniyadu ay ku dambayso oo hambadii ka dhamaan inay arrintaas ka soo horjeestaan. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.